aad iibsanaysid dharka hoosta laga xidho nigisyada keesheliyada wayna mid tayo leh aad iibsataa waayo haddaad mid tayo leh iibsan waxaa dhici karta in xanuun aad ka qaadi sida cuncunka meeshii waayo huur badan bay samaynaysaa marada nayloonkaana ka xishootay ama ma ka dhacday in aad iibsatid maryaha hoosta laga xidho haddaad gabar tahay ama aad wiil tahay barnaamijkeenaynu maanta ku eegi doonaa axadda iyo sabtida aynuugu talagal mar walba inaynu waqti ku wada qaadano waa Dhuxul Media haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe ha ka ilaawin like tana saar wixii commentiyana nagula wadaag xagga hoose weli ma isticmaashay ama ma ka xishootay maryaha xagga hoose laga xidho kuwa surwaalada xagga hoose laga xidho ama keesheliyada oo kale arintaas aynu ku eegi doonaa oo dad badan ay ku kala duwan yihiin afkaartooda oo dhaqamaduna aad u xiiseeyaan in laga hadlo markaynu ka hadlayno arintan hoos kashiga ama ha noqdo surwaalada yaryar hoosta laga xidho ama keesheliyada ay dumarku xidhaan ha noqdeen naasa ay ku xidhaanba ayaa waxaa dhaqamada inta badan ku kala duwan yihiin in laga kala xishoodo dhaqankeena Soomaaliga sideeba u saameeyaa ma ka xishootaa markaas leedahay iibsatid ama xaaskaaga u iibi ama adigu iibso ama ninkaagaba u iibi ama dukaamada lagu iibiyo markaad aragtay iyadoo buuq ah ma aragtay inaad mar walba ka yar dhacaysid arintan oo kale kaligeed maaha wadamo badan sida hadda Pakistan oo kale ee kiiskeena u soo qaadan doona hadii Ilaahay idmo ayaa ka dhacday inaysan raguba geli karin goobaha lagu iibiyo dharka hoosta laga xidho ama meelaha cawrada lagu asturo waana barnaamij aad igu qosol badnaa oo inay dad inala mida way Soomaaliya narki jiray hadii la arko nin rag oo iibinaya keesheliyada iyo surwaalada yar hoos laga xidho rag dumarka in ay lagu dacayadeeyo sidoo kale wadanka Pakistan baasna waxa ceeb ka in la soo hadal qaado ama ay si toos ah dumarka ama rag u iibsadaan waxyaalahan hoosta laga gashado ayagoo dukaamada qaarkood oo kale laga hor istaagayo marka aad doonaysid in aad maryaha noocaas oo kale iibsatin weli ma aragtay mise waad ka xishootaa marka aad iibsanaysid oo kale maryaha noocaas oo kala arintani waxa ay dhacday sidii aad warbaahin badan aad ku aragteen ama qoraal laga sameeyay markii ganacsade Ingiriis oo magaalada Leicester degan uu dalka Pakistan tagay asagoo isla u suuqaysi dhar fiican aad soo iibsid waayo hablaha badan ee Pakistan ku nool inta badan waxay ka caawdaan dharka ay hoosta ka xidhaan inaysan tayo lahayn inagoo tusaalayaal u soo qaadan doona hadii Ilaahay idmo kuwaasoo dhib badan ay ku qabaan xagga tayada iyo la ekaanshaha surwaalada hoosta laga xidho iyo kuwa naasa lagu xidhaba labaduba inaysan fit aysan ku ahayn xanuuno badan ay isku arkeenba marka waxa kale oo xiisaha leh waxay tahay in dalka Pakistan marka aad soo gashid oo kale lagu joojinayo ilaalada dukaamadaasi haddaad nin tahay inaad geli karin ninka warbixinta diyaarinaya ma inuu ogaado ganacsiga si horumariyo dukaanka midabo galay asagoo iska dhigay nin diblomaasiya kadibna xaalado badan buu inala wadaagay soo gudbiyay oo BBC-da qudheedo ay warbixin ka samaysay marka dhaqamadan waxaan la yaabjay marka dalka la joogay oo kale inaysan si toos ah habluhu aysan u gadanin arrimaha hoosta laga xidho weli ma kugu dhacday adoo u baahan inaad keeshel iibsatid bahasha marka caadadu timaado kale dumarku xidhaan oo kale surwaalada yar hoosta laga xidho marka aad isleedahay iibsatid inaad ka xishootid ama istiraahdid meesha ragga ku badan ama aad ka yar dhacdidba waa arrin kula mid ah oo dad badan ay ayaguba haystaan marka arrimaha xiisaha leh inaba dhaqankeena hadeerto ku soo noqnoqdayba waa la mid seenu la wada soconaba BBC-da ayaa warbixin aad u qosol badan ka diyaarso xamaasad leh dharka hoosta laga xidho ee dalka Pakistan oo aad la warbaahinta moogta looga hadalhayay gabar kamid ah gabdhihii warbixinta ku jira oo BBC-da u warantay oo Hira Inam la yiraahdo ayaa waxay sheegtay in 10 sanadood ee la soo dhaafay ma aanan helin bay tiri wax dharka gudaha laga xirto oo na le'eg ama qaababka aan doonaya mar walba ii le'eg ayadoo sheegtay inay hortaagaan ayadoo markii suuqyada timaado kale ay kaba weydaba wax la eg ama wax markaa ku soo baxaya ama xagga tayada kale ma wanaagsana sidoo kale waxa ay sheegtay markay ka hadlaysay hadalkeeda tayada dharku ma wanaagsana cuncun ayaan ku bilaabanaya marka aad xidhatid ama dhidid baa dareemaysaa furuuruc ama waxa la yiraahdo nabarro yar baa ka soo baxaya marka ma wanaagsana way dhaheen ama ma aan jeclaysan baa dharka hoose laga xidhaado Pakistan oo kale lagu iibiyo waana sax
inta badan dharka hoos laga xidho waxaan idhaahdaa inuu suuf noqdaa, nylonka kale ma fiicna, xanuunaha laga qaadaa oo waayo huur badan buu samaynayaa. huurka markuu sameeyana waxaa dhacaysa in bakteeriyada ay meesha ku korto. mar walba dharkaad hoosta ka xidhanaysa ha noqdeen dhar suufa. markaynana dhaqankan oo kale waynu qabnaa inaynaan dhar badan oo tayo leh dalkeena iman. dharka laynoo keenana ay yihiin wadamo kale iyadoo lagu soo sameeyey, cimiladii loo soo sameeyeyna aysan iyo teenuna aysan mar walba ismaaj garaynayn ama iswaafaqayn. xagga dhaqankana markaynu eegnana ceeb ayayba tahayba in si toosa loo iibsado ama dukaamada loo dhex maro oo la sameeyo inaad choicekaaga iibsatid. khaasatan xagga gabdhaha Pakistan baynu kala midnahay. waxyaalihii warbixinta lagu soo gudbiyey waxaa ka mid a marka laga hadlaya arrimahan si dadku uga xishoodaan ama uu dhaqanku u saameeyo. mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya warshadahan lagu sameeyo dharka nigisaanta ee keesheeliyada oo wadanka Pakistan markaa ku nool ayaa shaqo buu ka helay xarun shirkadaasi ay leedahay. xaaskiisa way soo raaceen markii waraysiga laga qaadayay sida BBC sheegtay. markii waraysigu dhamaystay wuxuu ku yidhi ha u sheegin xaafadii ama qoyskii inaan shaqadan ka shaqaynayo dharka hoosta laga xidhayo keesheeliyada, waayo wax kale bay u arkayaan ama ay ka samaynayaan dacaayada. sidoo kale maruu ka hadlayay isagoo qudhiisa waxa uu yidhi saaxiibada ayaa igu shactiraysanaya ama igu qoslay halka aan ka shaqeeyo. qoyskaygana ayaa ii diiday inaan aado warshada. markii ugu dambeyntii aan ku biiray waan xishooday markii aan arkay nigisyada haweenka. hadda xaalkaygu uu ka wanaagsan yahay sidii hore sababtoo ah waan la qabsaday waxaan ka shaqaynayo. waayo marka hore wuxuu la yaabay nigisyadan iyo keesheeliyadan marba dhinac u qaadayo aysan dhaqankana lahayn. saaxiibadiina aad ayay uga shactiraystaan ama uguba qoslaan siduu sheegayba ilaa faamilkiina wuxuu yidhi ha u sheegina. marka waa shaqooyin dadku inta badan ay ka xishoodaan, kadibna problemka waxaa keenay inaysan wax tayaalaha aysan iman. waxyaalahan xusuusta waxaa ka mid ah hadda dalkii oo kale ma lahayn wax taya leh. waxaad arkaysaa dhar huudheerkaas oo lasoo isticmaalay oo banaanada lagu iibinayo. ma dadka tamartoodii baa yar mise waan la keenin wixii tayada lahaa. dhar lasoo isticmaalay oo meelaha hoose lasoo gashaday in la iibinayaad arkaysaa suuqyada oo sida huudheerka oo kale oo aada loo iibinayo iska yar jabana $2 laga siinayo. laga yaabaa gabadhina inay caafimaad darra u keento. marka waxaanu leenahay inuu ka digtoonaano haddaad wax iibsanaysid mara konton ama suuf ka samaysa inaad gadataa. caafimaadkaaguna saasuu moogtahay u fiican yahay. waa qisooyin aada u cajiiba. dhaqankan iyadoo ay tahay inaan lagaba hadlin oo dadku ay caybsadaan, haddana waxa ugu muhiimsan inuu barnaamijkan usoo qaadano waxay tahay walaal markii mar walba weli ma isticmaashay ama ma aragtay ama ma ka xishootay baynu barnaamijkeena ku eegaynay. haddii sidan oo kale hore kuugu dhacdina waad nala wadaagi karaysaa. mar walbaynu caafimaadkeena ka taxadarna insha allahu tacaala. walaalka maxamed cabdilaahi aad iyo aad baad u mahadsantihiin.